maamulka galmudug ayaa tababar ku saabsan ka shaqeynta nabadda u furay dhalinyarada galmudug faafahinta warkaas waxa inoo haya wariyahayaga Cabdi Xasan Durdur wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug ayaa kulan isugu keentay dhalinyaro laga soo kala xulay degmooyinka galmudug si loo tababaro ka shaqeynta nabadda iyo isu soo dhaweynta bulshada wada degan ee dariska ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug Axmed Ismaan Aadan Qooje ayaa sharxay ujeedka dhalinyarada la isugu keenay wuxuuna tilmaamay in balaarinta wakiilada nabadda oo horey ugu dhisnaa Dhuusamareeb Cadaado iyo Caabudwaaq ay u horseedayso galmudug in ay noqoto deegaan nabdoon oo dadkeedu ay isu dhow yihiin marka aan loo ololayn nabadda oo aan laga qayb qaadanin nabad iyo lama helayo iyo isdhaxgal marka waxa la idinka rabaa inaad nabadda wax uga ololeydaan ka qayb qaadataan ummadda wacyigelin badan u samaysaan si wixii halkaan la idinkugu sharxi doonaa qaabkaad uga qayb qaadan lahaydeen ee ummadda aad iskugu keeni lahaydeen ee aad nabadda ugu ololeyn lahaydeen awal degmooyinka kaliya laga keeni jiray tiimamka hadda macaatuulooyinka in laga keeno deegaanada dhan laga soo aruuriyo dadku ay si ay bulshada ula wadaagaan wixii loo sheego oo loo sharaxo la baro inay ummadda kula laabtaan